dadkan oo tiradooda gaaraysay 50 ruux oo isugu jiray muwaadiniin Soomaaliya iyo kuwa u dhashay gudaha dalkan Uganda isla mar ahaantaana xafiisyo ku leh gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay shirkadda Crown Travel iyo diyaaradda caalamiga ah ee Sahan ay u fududeeyeen inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya isla markaana ay la midoobaan ehladooda iyo sidoo kale waliba xafiisyadooda oo ay ka maqnaayeen in muddo ah sabab la xiriira cudurka dunida afayay ee coronavirus. Inta badan muwaadiniintan u socdaalayay gudaha dalka Soomaaliya ee ka socdaalayay dalkan Uganda ayaa waxa wajiyadooda ka muuqanayay farxad iyo hididiilo maadaama shaqaalaha shirkadda Crown Travel iyo Sahan Airline ay dadka ugu shaqeynayeen qaab wanaagsan iyaga oo raacaya marxaladda iyo fariimaha dawladda Uganda ay ka bixinayso cudurka coronavirus. Maxamed Barre Maxamuud milkiilaha shirkadda Crown Travel ahna agaasimaha guud ee shirkadda Sahan Airways qaybteeda dalkan Uganda oo muwaadiniintan garab ku siinayay bixitaankooda goobjoogna ahaa gudaha garoonka Entebbe ayaa xafiiskiisa inooga warbixiyay dadka ay dalka dib ugu celiyeen iyo waliba kuwa ay dalka ka keeneen. halkan aan jeclaan lahayn inaan kula wadaagno ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan inta daneynayso safarada ama kuwa bulshada jaaliyadda qaas ahaan ku nool wadankan Uganda waxaan ugu bishaareynaa in aan sameynay duulimaad Kenya ugu horeeyay oo ahaa maalintii 29ka aan ka soo qaadnay dad gaaray ku dhawaad 40 qofood aan ka soo qaadnay magaalada Muqdisho oo aan keenay wadanka Uganda airportkiisa Entebbe International sidoo kalena waxa maalinka 30ka bisha ahayd maanta ahaydna waxaan qaadnay dad gaaray ilaa iyo 50 qofood oo isugu jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed ee halkan ku go'doonsanaa iyo mataqaana shaqaale oo ajnabi ay ka howlgalayay Soomaaliya guud ahaan. intaas kadib waxaan mataqaanaan ugu bishaareynaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Uganda magaalooyinkiisa kala duwan ama gaar ahaan jaaliyadda reer Kampala in anaga hadaan nahay shirkadda duulimaadka Sahan Airways duulimaadkan ugu horeeyay oo ahaa maalnimadii shalay ee ka yimid Soomaaliya ee kuna laabtay maanta in aan mataqaana joogteen doono. geesta kale waxa uu shaaca ka qaaday in 15 September uu bixi doono safar ku wajahan magaalada Muqdisho ka baxaya garoonka diyaaradaha Entebbe ee dalkan Uganda. toddobaadkiiba labadii toddobaadba mar aan sameyn doono duulimaadyada hadduu Ilaahay yiraahdo ama bishiiba 2 goor. hadda duulimaadkeena noogu soo horeeyna waxaan ugu bishaareynaa ummadda inuu yahay 15ka bisha September hadduu Ilaahay yiraahdo inagu soo aadan. safarka aan u qorsheynay ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka daneynaya inay ku laabtaan dalkii hooyo waxa uu noqon doonaa mid aan ku tagi doono magaalooyinka ama gobolada Soomaaliya oo dhan maadaama hadda uu furan yahay airportkii Muqdisho guud ahaan oo yahay airport furan mataqaana flightadii localka ama connectionska dhammaan ay wada shaqeynayaan sida aad ka warhaysaan. marka annagoo mataqaana taas ka duulayna ayaan waxaan isku taxluujinay ama aan juhdi ku bixinay hadaan nahay maamulka shirkadda Sahan Airways in aan mataqaana aan ummadda ku go'doonsan ama jeclaan lahaa inay tagaan goboladii dalka hooyo aan u fududeyno safarada. geesta kale Cabdi Fitaax Cabdullaahi oo ku magac dheer Buuhoole kana mid ah shaqaalaha shirkadda Crown ayaa sharaxaad dheer waxa uu ka bixiyay halka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkan Uganda ay ugu hagaagi karaan wax walba oo tigidhaha ay uga baahan yihiin bixitaanka 15 September oo ay sameynayso diyaaradda caalamiga ah ee Sahan Airways. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. magacaygu waa Cabdi Cabdullaahi Xasan waxaan ku hadlayaa magaca team operationka ee Crown Travel Agency. waxaan u bishaareynaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda ku nool dalka Uganda inay Crown Travel Agency ay bilowday duulimaadyo aadaya dalka hooyo gaar ahaan from Muqdisho gobolada oo dhan. waxaan kaloo ugu bishaareynaa ummadda Soomaaliyeed ee joogta dalka Uganda in diyaaradda Sahan Airways tigidhadeedu laga heli karo every travel agency ku yaala wadanka Uganda. sidoo kale waxaan ugu sii hambaleynayaa inay heli doonaan service ama caawin gaar ah oo loo sameyn doono ummadda Soomaaliyeed ummadda baxaysa gaar ahaan in laga caawin doono airportka waxaana airportka jooga dhalinyaro Soomaaliya oo in garab istaagaysa